senator fariiso abdowriyaas waajibiga ay ku bilaabatay khudbadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahayd mid aad loo wada sugayo kuna soo aaday xilli adag. madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay kaftan la xiriira xanuunka COVID-19 waxaase ku sii adkaatay in khudbadiisa dastuuriga ah uu sii wado kadib markii mudanayaal ka tirsan golaha ay buuq fureen. madaxweynaha ha la dhageysto. xildhibaan fariiso senator fariiso. intaas kadib guddoonka baarlamaanka ayaa xal ka gaaray mudanayaashii buuqa furay waxaana uu sheegay guddoonku in xildhibaanadaas ay jebiyeen xeer hoosaadka baarlamaanka. sidaasna waxaa ku suura gashay in madaxweynuhu uu sii wado khudbadiisa dastuuriga ee ku aadan furitaanka kala fadhiyada mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa qaybtiisa hore uga hadlay xanuunka COVID-19 ee caalamka iyo Soomaaliya saameeyay waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan in sidii loo filayay uusan u saameynin corona isagoo amaanay guddiga ku howlan ka shaqaynta ka hortagga corona oo xukuumadda federaalku ay hogaaminayso. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horumarada dowladda ay gaartay mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay horumar weyn ku gaartay xasilooni siyaasadeed waxaana uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ka sii shaqayn doonto ka hortagga musuqmaasuqa, adkaynta ammaanka iyo tayeenta garsoorka dalka. waxaan sida la socotaa aan si dhow arrimaha geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda wadamada geeska Afrika kuwaasoo aan isla garanay in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin aan isaga kaashano arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna nooga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqeyn hadday noqoto dowladaha dariska in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado waxaana ku qaadaynaa in dhankeenna arrintaas aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka gadaynin qaarnimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwey arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udubdhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa caddaa waxaa aadaha jiray in la yidhaahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay tihiin madaxdii maanta waxaan shaki ku jirin annagoo ka fuulayna madaxdiidaas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u imanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada. waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doono arrintaas hadduu Ilaahay yidhaahdo si aan u xaqiijino doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo nooleynta qaranimada Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo maliibaanaha laguma liibaano dhalinyaradu ka fogaadaan 30 sano oo khibrad ay leeyihiin waa la soo shitay dagaalka mid baa la soo geliyey haddana waxaa lagu wada dagaal arrinkiis. Abbas Xuseen Muuse, Home Cable TV, Muqdisho.